munaasabad lagu shaacinayo laba musharax oo kala tartamaya golayaasha wakiilada Soomaaliland iyo golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa lagu qabtay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida warkan uu nooga soo diray Burco wariyaheena Cabdisamed Axmed Yuusuf waa mid ka mid ah munaasabadaha ugu miisaanka cusub ee lagu soo bandhigayo qaar ka mid ah musharaxiinta isku mataansan ee ka qayb galaya doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka. Munaasabadani lagu shaacinayo musharaxnimada Maxamed Saciid Xasan Shawr oo u taagan doorashooyinka golaha wakiilada iyo Xamse Baashe Maxamed Laande oo u taagan doorashooyinka golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ka soo qayb galeen wasiirro ka tirsan xukuumadda, saraakiil sare oo ka tirsan xisbiga Kulmiye, odayaasha iyo aqoon-yahanka iyo madax dhaqameedka beesha musharaxiinta soo xushay iyo bulshada u tiro badan. waxaana kamid ah hadaladoodii hal badan ka bacdi markii ay murashaxiintooda ay soo yimaadeen waxay noqotay in laba qof la soo saaro, labada qofna laba qof box soo ka baxay ama labada musharax labada nin buu gartay inay uga qayb galaan golaha deegaanka iyo baarlamaanka. shirkan suuna maanta waa shir insha Allah barakaysan, waa shir baaraysan laga maanta doonayna inayna u gudbiyaan arrintaas oo marka dambe wax wada constituency iyo degmo iyo xaafad ay ku soo doortaan dadka. sharciga oo waraaqaysan oo nidaamsan baa loo codeeyay, nin waliba kuus lahaadeer ninkaasa ama cadaalad ugu dhow ama sinaan ugu dhow ama xilkasnimo ugu dhow ama haddii kartire ayuu ugu codeeyay. magacaadan madoobe labadan nin ayuu isku raacay. waa dad xaqiiqatan qiimo ku leh bulshada dhexdeeda, waana soo dhaweynayaa beesha keentayna waa uga mahad celinaya. runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa labada murashax Xamse Baashe iyo Shawr Saciid oo runtii si qiimo leh oo milga leh u soo kala reebay, u soo xulay xubno runtii la oran karo waa xubnaha ugu qiimaha badan. intii ishu qabanaysay iyo intii coday jirtayba halkan ayay joogaan. waa laba musharax oo la soo shirabay ayaa laynoo keenay, waxaan leenahay waan idin ducaynaynaa. labadaba waan garanayaa, yana aadan madoobe quri ma qaadanay, waynu wada qaadanay kulligeen, dhammaantaan waynu wada qaadanay. farxad weyn bay runtii ii tahay caawa inaan goobjoog u ahaado madashan bilan ee beesha aadan madoobe ay ku soo xushay labada musharax inay xildhibaanadoodii keeneen, xukuumadda iyo xisbiguna ka guddoomeen. markaa waa la hubaa in aanay dhacaynin labada musharax insha Allah, in aanu qaadan doono labada musharax insha Allah aanay soo bixi doonaan. haddii aanu xisbiga nahay caddaynaynaa mar haddii ay shuruudaha buuxinayaan oo aanu ognahay inay kolleyba sidaanu ognahay ay buuxinayaan. xisbiga Kulmiye wuxuu halkan ka caddaynayaa inuu qaatay labada xubnoodba. ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay musharax Maxamed Saciid Xasan Shawr iyo Xamse Baashe Maxamed oo u mahadnaqay madax dhaqameedkii, odayaashii iyo bulshadii ku taageertay hankooda iyo rabitaanka bulshada soo xushay inay matalaan golayaasha qaranka. marka labaad waxaan u mahadnaqayaa bulshooyinka sida noo soo sharaftay oo ay ugu horeeyaan waxgaradka reerku oo naga soo dhex xulay rag badan oo hadday doonaan naga fiican. waxaan ahay macallin gobolka Togdheer oo dhan matalaya, u sharaxan ardaydiisii, u sharaxan Togdheer. Cabdisamed Axmed Yuusuf, Cabdidhulo, Universal TV, magaalada Burco.